السلام عليكم سودو هذا صاحب بيال مقال كان كوبان حنكسر بندقي دونا روليس عصب أساس صارت الشركة ET Forex بيشن جانوري رقم قالينا بيشن جانوري 14 كدي وأتهاي قفل وأكون كله أمر ربعين وأكون كفرته ومسكح لقاء روليس كان سأنا هذا طلع عن عقبات وقول نقن أكون كيسين وسيا يستوين فائدة كسمية روليس كعديات ويب سايت كشركة السوق جديد ET Forex ده سوق جديد ويب سايت كده واحد كسي دورنا ساعة terms and conditions هالكي كقرن تاي هالكاسي كقرن يهين دمان روليس كلقى ربعين دلاليسيد يفافهين ده هذا وده جدًا أو بقول ريهاي أنا أقول لكن ما حنقصو كوبني لبيه طبعا حير أنا صفة فاسانا المقال كنا نقولها الدون إن شاء الله مركب كوبات سلاير كان ديار سنة ديانو تغنو حير كعصب حير كعصب الشركة ده لبا أي سوق جيران وحير هدية تبيسيد دقنين لقسين دونه يحير واحد دقنين لقسين دون وهذا سلامركا تبيسيد بعد كواي دون تدا كون كاغا لقى حير دونه لبيه طبعا كان حير بيسوق جيران أكون كا هدية روليس كان تبيسيد حير كدقنين تله دقنين تسوي حويه إن أنا بيشان الحير كتبيسي فإذا دي يلعق تاش عيسي إن هذا هني دونين أو أي سلا كاغا خسارة دونتو لكن أكون كاغا لغا حير دونين هديان حيرر كا سكوت تاغنو حير ككوبادو حورانيا لما أقولين التريد كشو ستوب لوس لان هل تريدنا هو يراده ستوب لوس لان لقامه أقولا حير كي هراء 14 جانوري كهريي وحاوها شن تريد لما أقولا شن تريد وحكا بدن لما أقولين ستوب لوس لان أي كان نقدان هل كان سؤال بأيمان يسوء ممرك كوبادي عن ربين التريد كقالو يعني ستوب لوس سمين سنة بس إنتن قالو أيان dib edit ka sameyn karaa kadibna aan stop loss ka gashan karaa jawaabtu waxa weeye aslan waa inaan trade ka markaad xidhaysid inaan stop loss la'aan ka noqon ayaa muhiim ah marka koobaad stop loss la'aan hadaad doonaysid trade inaan ku dhaafin suuqu xawli ku socdo trade ka oo geli kartaa dib baad edit ka sameyn kartaa oo stop loss ka gashan kartaa laakiin markuu xidhmayo baan laga rabin إنه أسأل عن أكان قطميشو حير كان هذا تبيسيد عقابة كيمن كرا واحد كيمن كرا إن أنا فائدة دي أشغيسي بيشاس الحير كان تبيسي هنا هذه الدونين وبيش الدمبون عاد كسي حساب ده بدونتيد أقول حير كان يسكال علينا يا إن تبيسيد بيش الدمبون ده حير كي تبيسيد لمر كرا تبيسيد محاري كرا أكون كأساس كواي دونتا sababtoo digniinta bishii hore lagu soo siiyay qodobkaas waa tabcan maleynaya stop adaan ugu gudbino xeerka labaad stop loss ka dhiganayso yaanu noqon mid keenaya khasaare dhan 2% oo ah lacagta kugu jirta akoonkaaga xeerkan maxaa laga wadaa tusaale ahaan haddii $10,000 akoon ah aad haysatid stop loss ka aad dhiganaysid trade kasta markaad bibiska xisaabisid khasaaraha uu keeni karo yaani noqon wax ka badan $200 oo 2% kan wuxuu dhigmayaa $10 wuxuu ga dhigmayaa $200 marka taa tusaalahaas inuu soo qaadanayna mar walba oo aad stop loss dhiganayso waa inay ku xisaabsan tahay percentage-ka aad khasaari karto lacagta akoonkaaga kugu jirta waa inaad iska hubisaa oo stop loss ka aanad meel fog dhigan stop loss ka haddii aad meel fog dhigatid waa inaad xisaabisaa bibiska iyo lacagta khasaaraha lodka aad ku gashid iyo khasaaraha ay keeni karto marka khasaaruhu hadduu ay keeni kartaa hadday gaarto 2% akoonkaaga lacagta ku jirtay guud oo in tusaale soo qaadanay 10,000 boqolkiiba laba waxay ka noqonaysaa $200 trade ka gelin stop loss ka soo yareen si aan xeerka aanad u jabin qodobkaas wuu cad yahay baan filayaa
qodobka saddexaad waxay noqonaysaa shaqee 10 maalmood oo maalmaha shaqada ah isniin ilaa iyo jimce si aad u dalbato bishaas lacagtaada qodobkani waxa uu ku xidhan yahay lacag dalbashada sababtoo dad 10 maalin aan shaqaynin muddada bishaas ah lacag ma dalban kartid laakiin lacagtaada waad haysan kartaa oo bisha dambe baa lagu sii daraya marka kani qodob aad u muhiim ah maaha kaliya waxaan rabnaa inaan baraarujino inaad lacag dalban karin oo haddaad tusaale ahaan targetkii 5% ka ahaa aad ku gaartid muddo 5 cisho ah bishaas lacagtaa ma dalban kartid waxa weeye inaad 10 maalmood aad dhamaystirtaa kadibna aad dalban kartaa marka bishaas 5 aad ahaan gaari qodobka afraad wuxuu leeyahay isticmaalin lotsaysyada sida kala ah 0.01 0.02 0.09 ilaa halkaas stop loss kasta oo ka bilaabmaya 0.0 ma isticmaali kartid sababtoo waxa laga rabaa inaan waxaagu noqon maalmo ku buuxsi salaana haddaad dhowrka cisho horeeya aad gaadhid percentage-kii laga rabay oo 5% ka ahaa inaad maalmaha daba tareeday roo gaagaaban fulin si aad 10kii casho u dhameystirtid marka iska ilaali inaad isticmaashid stop loss-yada noocan kala ah 14 January wixii ka horeeyay 0.01 baa la diidi jiray laakiin imika ilaa 0.09 lama ogola marka ayaan ku dhuuman qodobka shanaad ha isticmaalin copy trade qof copy trader sameeyaha ku xiran akoonkaaga copy trader garan kartaan waa qof akoon leh oo akoonna kale ku xiran yihiin kadibna istiraatiijiyada uu adeegsado iyo tradeada uu maalinta galo akoonkaaga marka ku xidhid inta in leeg ama faa'iidada keenaad faa'iidaysid khasaaraha uu keenaad khasaaraysid ka taasna waa qodobka ha isticmaalin copy trader gacantaada adigu adeegso sababtoo shirkadana waxa u baahan tahay xirfadan isagu garanaya oo khabiir ku ah akoonkooda aan ka khasaarayn qodobka lixaad waxa uu noqonayaa qodob yar oo muhiim ah ha bedelin password-kaaga marka koobaad company-ga aad isku diiwaan gelisay password-ka aad company-ga isku diiwaan gelisay xasuusnow ha bedelin haddii aad bedeshid maxaa iman kara waxaa iman karta inay shirkaduba akoonkaaga ay ku furi weydo oo laga dhageysan waayo akoonkan anaa leh iyo waxyaabo saas ka adigu marka koobaadba qodobkan iska ilaali password-kaagi iyo email-kaaga waa inaad xasuusnaato waa inaad adigu leedahay waa inaad isticmaali kartid qodobka toddobaad wuxuu leeyahay ha khasaarin lacag ka badan 5% akoonkaaga ka mid ah si aad akoonkaaga u waayin yacni waa maximum down-kii weeyaan marka 5% haddii aad akoonka lacagta kugu jirta aad khasaarisid akoonkaaga waa lagaa xiri doonaa sababtoo waad ku dhacday imtixaanka oo qof xirfadla ama tihid shirkaduna way kaala noqon doontaa akoonkii aad ku siisay number 8 ha isticmaalin EI aanad la socodsiin shirkadda DT Forex oo aanay approve garayn EI waxa weeye expert advice sida robotyada oo kale ha isticmaalin haddii aad rabtid inaad isticmaashid oo ka go'an tahay waa inaad shirkadda u gudbisid magaciisa iyo inay ogol yihiin kadibna iyaga shuruudo dheeraada kaasi dalbanaya iyo inaad ku shaqayso 3 bilood waxyaabo saas oo kale ku sii weydiin doonaan marka adigu iska hubi marka koobaad shirkadda la xiriir weydii inay aqbalayaan qodobka 9aad qodobka 8aad haddii isticmaashid iyagoo aanad u gudbin haddaanay EI-ga aanay iyagu ogolayn akoonkaaga saas ku waayeysa number 9 ha gelin trade dhaqaaqaya wax ka yar 5 bps ama ha xirin trade dhaqaaqay 5 bps wax ka yar yacni tani maaha macnaheedu inaan la ogolayn scalping waa la ogol yahay laakiin scalping-ku maaha haddii 5 bps in dee aad ka xamaaratid oo halkaasun aad ka shaqaysid qaar baa 10 bp dhowr iyo 20 bp qaar gaaraan marka adigu iska ilaali 5 bp wax ka yar trade ah inaad gashid haddaad gashay oo khasaaro ku socdo aad ka walaacdid xataa inaad xigtid oo aad ugu tala gashay inaad xigtid
5 bps markuu kula dhaafo waa inaad xidhtaa qodobkan haddaad jabisid maxaa ka iman kara waxaa ka iman karaa in bishaas lacagtii aad shaqaysatay aanad heli doonin bisha dambe haddii aad ku celisidna in akoonkaaga aad waayi doontid number 10 lama ogola off trading trade badan inaad gashid marka iyaga trade badan waxay u yaqaaniin maalintii inaad furtid wax ka badan 5 trade wax ka badan haddaad maalintii furtid akoonkaaga khatar ayuu ku sugan yahay oo bishaas wax lacaga ma heli doontid bisha dambe haddii aad ku celisidna akoonkaaga saas ayaa lagagala noqonaya marka off trading iska ilaali 5 trade wax ka badan ha isticmaalin ha gelin qodobka COVID-19 dalbashada lacagta aad shaqaysay waa inay ahaataa percentage go'an tusaale ahaan 5% waa inay noqoto ama 10% ama 15% tan maxaa looga gol leeyahay haddii aad shaqaysid lacag ka badan 5% tusaale ahaan 6%, 7%, 8%, 9% lacagta lagu xisaabin doono waa 5% taasaad percentage-kaaga 60% aad keenaysaa laakiin maaha lacag kastoo aad shaqaysid in percentage-ka loo qaybinayo tusaale ahaan haddii aad haysato account 10,000 ah oo aad ku dartay 800 oo u dhiganta 8% lacagta lagu xisaabinayaa bishaas waa 5% laakiin lacagta kale faa'iidada ah ee 8% marka 5% laga jaro 3% hadhay 3% kaare kale xagay gaarayaan xagay tani waxa weeye waxa lagu xisaabinayaa bisha soo socota ayaa lagu soo dar doonaa oo 3% ga waad haysataa haddii aad 2% kale ku sadartid bisha dambe waad gaadhay lacagta lagaga baahnaa in gaadhi targetkaaga waad gaadhay qodobka 12aad waa inaad joogtaysaa lotsaska aad ku bilowday maalinkaaga koobaad sidee yani maalinka koobaad ee akoonka lagu dhiibay lot size-kii aad ku bilowday tusaale ahaan baad ku fahmaysaa tusaale ahaan maalinkii u dambeeyey lot size-kii aad isticmaashay hadduu 1 lot ahaa 1 lot maalin labaada waa inaanad 50% aanad dhaafin 1 lotkii 50%na inaanad ka hoos marin tusaale ahaan 1 lot baad kusoo gashay maalin hore maalinta ku xigta ma dhaafin kartid 0.02 0.5 hoos gama gudbin kartid oo 0.4 kuma geli kartid kamana badin kartid 1.5 lot ah haddii aad 1.6 lot ah aad ku gashid xeerkaa waad jabisay bishaasna wax lacaga ma lihid bisha dambe haddii aad ku celisidna akoonkaaga waad waayi doontaa qodobkan aad loo fahmay baan filayaa waa inaad lotsaysyo kala duwan oo aad u kala fog inaad isticmaalin ayaan baa lagu talagalay lotsayskaad maalintii koowaad ku bilowday waa inaad joogtaysaa haddaad wax ka bedelaysidna waa inaanad haddaad wax ka yaraynaysid waa inaad 50% marka lotkii la kala qaybiyo wax kala barkii ka sii yar waa inaanad ku gelin haddii aad rabtid inaad kordhisid lotkaagana 50% waa inaad ku dartaa kala bar lotka koobaad aad maalintii ku gashay kala barkii waa inaad ku dartaa waa inaanad ka badin waxaan filayaa qodobkaasina inuu waadix yahay waraaqdana waa iisoo diri doonaa insha allah fiiro gaar ah ruliska si faahfaahsan waxaad uga bogan kartaa website-ka company-ga qaybta terms and conditions marka linkigiisina waa kan markaan idin soo diro warqadan 4 pages-ka ah ayaad insha allah si raaci doontaan faahfaahinta halkan bay ku qoran yihiin wixii su'aalaha qabtaanna whatsapp-kan baad nagala soo xiriiri doontaan sidoo kale telegram-yadan waa channel-adeena some investment iyo DT Forex Soomaaliya email-kan waad nagala soo xiriiri kartaa wixii kale ee dheeraadahna waxaad u noqon doontaa website-ka shirkadda DT Forex website-kooda markaad soo gashid halka terms and conditions waa kusoo dhufanaysaa ama waxaad ku dhufan kartaa halkaa faaq ay ku qoran tahay oo ah su'aalaha soo noqnoqday
frequently asked questions su'aalaha soo laabtay kaasna waad ku sii dhufsan kartaa su'aalihii soo laabtay oo ugu badan yihiin rules-kan cusub ayaad ka sii akhrisan kartaa intaas ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum.